toddobaadkii u dambeeyey ama horaantii bishan July waxaa saaxadda baraha bulshada ee caalamka ku soo biiray application cusub oo dabcan ka mid noqon doona kuwa loogu adeegsiga badan yahay. waxaa iskala shirkadda Meta Inc. waxaan barnaamijku inta uu socdo kugu tusi doonaa meelaha qaar ay kaga duwan yahay applicationadii aan hore u naqaanay. waxaanaynu kaga jawaabi doonaa dhowr su'aalood oo ay ka mid yihiin: sidee ayaad isaga diiwaangelin kartaa? qaabkeese ayuu u shaqeeyaa application-kani? muxuu kaga duwan yahay applicationadii aan hore u isticmaali jirnay ee social media? haddaba inta aanaynu jawaabahan u gelin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir barnaamijkana noo share garee si uu u gaadho dad badan. mahadsanid. aynu ku bilownay abkan ayaa lagu magacaabaa Threads, waxaana iskale sidaynu hore u sheegnay shirkadda Meta Inc. waxaa si rasmi ah loo daahfuray 5tii bishan July. haddaba si aad account cusub uga samaysatid abkan waxaad u baahan tahay in sida oo kale account uu kaaga furan yahay application-ka Instagram. abkan ayaa meelaha qaarkood uga duwan application-nadii aan hore u naqaanay. haddii aad u baahato inaad video soo post garaysid kama badnaan kara 5 daqiiqo. sawirada ugu badan aad hal mar wada post garayn kartaa waa 10. qoraalka ugu dheer aad qori kartaa waxa uu ka kooban yahay 500 xaraf. haddaba application-kani wuxuu kuu fududayn karaa inaad hal mar ku wada dirsan kartid asxaabtaada Instagram. sidoo kale abkan ayaa aad loogu ekeysiyay sida uu u shaqeeyo Twitter-ku, waxaana ay taasi dood iyo kala shaki ka dhex abuurtay Elon Musk iyo Mark Zuckerberg oo kala ah labada mulkiile ee labada shirkadood. Twitter ayaa ku eedeeyay shirkadda Meta inay adeegsatay oo ay shaqaaleysiisay kuwa ka mid ah shaqaale Twitter hore uga soo shaqeeyay. sidoo kale privacy policy-ga waxa loo yaqaan ama se shuruucda loo dejiyay Threads ayaa aad loogu ekeysiyay kuwa Twitter, waxaana aad moodaaba in laga soo xigtay Twitter. balse sidoo kale waxaa jira meelaha qaar Threads uga duwan yahay application-nada kale, gaar ahaan Twitter. ma jiro hashtag la isticmaalaya application-ka dhexdiisa. ma jiraan fariimo toos la isugu diri karaa ama waxa loo yaqaan chatting. ma masixi kartid account-ga aad ku leedahay Threads ilaa aad soo masaxdid account-gaaga Instagram. dhanka kale Threads ayaa noqday application-kii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda ee 100 milyan oo qof la soo degaan, waxaana ay ku qaadatay kaliya 5 maalin. si kastaba ha noqotee waxa uusan shaki ka taagnayn inuu noqon doono platformyada loogu isticmaalka badan yahay mustaqbalka dhow.